hay-adda wadaniga ee Soydafo ayaa magaalada Bur ee xarunta gobolka Togdheer ku qabatay xuska maalinta dhalinyarada adduunka oo ku beegan 12 bisha August waxaana sidoo kale hay-adda Soydafo daafurtay barnaamijka tartanka halabuurka oo lagu maalgelin doono fikradaha horumarka u leh deegaanka iyo bulshada kuwaas oo la xiriira qorshaha horumarineed ee dawladda hoose ee degmada Burco agaasimaha guud ee hay-adda Soydafo Dr. Sakiya Jaamac Cabdilaahi oo ugu horeynba halkaasi ka hadashay ayaa ka warbixisay ujeedka guud ee xafladda iyo muhiimadda ay leedahay qabashada xuska maalmahan oo kale waxaana Dr. Sakiya iftiimisay kaalinta ay hay-adda Soydafo kaga jirto taageeridda dhalinyarada Somaliland iyadoo sidoo kalena ka warbixisay howlaha tartanka halabuurka oo ay xustay in shanta fikradood ee ugu wacan lagu maalgelin doono qadar lacageed oo dhan $1,000 midkiiba maantan waxa loogu talagalay waxa weeyaan in la falanqeeyo mawaadiicda dhalinyarta khaaska u taabanaysa ay ka mid tahay daryeelka caafimaadka fursadaha shaqada in loo sameeyo maalgelin businessyadooda ama fikradahooda iyo curinaha dhalinyartu la imanayso in la qaadaadhigo oo la eego iyada oo la arkayo culaysyada adduunka inka soo fuulaya waxa jiray coronavirus pandemic oo adduunyada dhan toosooda saameeyay dhinac walbana ka saameeyay marka iyadoo waxaas oo dhan la qadarinay haddana bal in focuska la saaro la eego dhalinyarta curintoodu sidee tahay sideen u taageeri karaynaa inagu maanta markaynu Burco joogno maxaynu qaban karnaa maxaynu wax ka bedeli karnaa arrimaha ku xeeran amaba ku weegaarsan dhalinyarta maanta oo kale haldhiga oo ah halkudhigeedu uu yahay horumarinta wax soo saarka dalka iyo doorka hal abuurka dhalinyartu ay ka yeelanayso dhalinyarteenu intee in leeg bay hal abuur leeyihiin intee in leeg bay helaan dhiirin si ay waxyaabaha ay ka fikirayaan ay maaragtay uga dhigi karaan wax shaqaynaya oo socda marka qofkii haddii uu leeyahay hami ama yool meel uu rabo inuu gaadho dabeetana aanu haynin meel uu ku soo bandhigi karo yoolkiisaas ama hamigiisaas ma filayno oo dee ma suurtagelayso in la dhahdo muxuu qofkani wax u curin waayo sababtoo maynaan siin platformkii amaba meeshii uu ku soo bandhigi lahaa ee curintaa uu isagu ku gaadhi lahaa marka anigoo ku hadlaya magaca Soydafo ururka Soydafo waxaan maanta soo bandhigaynaa waxa weeyaan anagoo la shaqeynayna dawladda hoose ee Burco iyo golaheeda deegaanka inaanu hadda aan daahfurayno barnaamij aan ku talagalnay in lagu dhiirigeliyo inay dhalinyartu curiyaan afkaar inay iyagu la imaadaan mashaakilka haysta inka degmooyinka aad degan tihiin dhibaatooyin baa ka jirta suuragal dhibaatooyinka ka jira halkeedu wuxuu ka imanayaa un waa qofkii arkay dhibaatadan marka inaanu taa laftigeeda aanu maaragtay anagu ahayn cidda leer garanaysa laakiin u daba fariisanayna cidda ay shaqadooda tahay inaanu ku dhiirigelinayno maayarka degmada Burco barsaab ku xigeenka gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo mas'uul ka socday wasaaradda shaqagelinta iyo horumarinta arrimaha bulshada oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay horumarka ballaaran ee hay-adda wadaniga ee Soydafo ka wado guud ahaan gobolka Togdheer oo sheegaya shuruudaha lagu soo xareysanayo barnaamijkan ugu bixinaya lacagta lagu hormarinayo degmada Burco sidoo kale waxa toos ah lagu xareynaya waxa weeye waaxda arrimaha bulshada dawladda hoose Burco iyo milkiilaha toos loo gelinaya anagoo ku caawin doona insha Allah taala maanta waxaynu kulli farxadin oo ah inaynu joogno xafladii 12 August oo ah maalinta xuska dhalinyarada adduunka oo dhalinyarada Soomaaliland ama reer Togdheerna ay ka mid tahay dhalinyarada adduunka in dhalinyaradu hal maalin ay yeelato oo maalintaasina ay kaga warbixiyaan farxadooda horumarkooda aqoontooda kartidooda way wacan tahay dhalinyaradu waa dalka adduunka runtii waa kuwa wax ka bedeli kara bulshada waa kuwa ku soo kordhiga bulshada وهذا كرتاوي إلى أي واحد كبر إلى هذا كرسيو دليل وحلا يعني وحادي هذا والبلد كتير الدولة إيو شعب إيو هايلو تدا البلد كتير واحد ما أدري أنا هيدا محل جاء Soydafo أو هرمارين بدك جيستي دقمة يقول أو برنامج كان سوق من قبل سي مانتا ويكتير فرصة بدن يدور غرف بدن سيدا يكفرين وهذه دليل هذا الكودة ما أنت نقله وكوب بيجان طبعا كبش وحلقة كورة نليرو أو اللي هذا حسكا ما نلقى قارئ لي اللي ما هذا اللي هذا أو لسه لو يسوي هذا تيجي لك بيت اللي هذا
hadba sanadkaa xuskiisa sanadkii ku xigay ka dambeeyey ay wax curin sameeyeen kuwii curinta sameeyeyna imisaa guulaystay oo waxay curiyeen oo guulaystay sida laga sheekeeyey maanta waa maalin weyn waa maalin loo asteeyay dhalinyarada adduunka iyo bulshada qiimaha ay ku leeyihiin runtii koonkan ilaahay abuuray dhalinyarada wuxuu ka siiyey masiyo gaara ilaahay wuxuu ku ammaanay dhalinyarada siiba dhalinyarada mu'miniinta qur-aankiisu ku ammaanay adduunka qaybihiisa kala duwan ama dalalka horumaray waxa horumariyey oo meel fiican gaarsiiyey waxa weeye dhalinyaradu hadday garato muhiimadda ay ugu fadhido bulshada horumarkeeda hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay aqoonta hadday tahay waxbarashada hadday tahay wax kastaba runtii wax badan ayaa la gaaraa oo waddankaasi horumar ku gaaraa intaasi kadib waxaa madasha lagu qabtay dood u dhaxaysay aqoon-yahan iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco doodaasoo salka ku haysay horumarka wax soo saarka dalka iyo doorka ay dhalinyaradu ku leedahay Kamaal Xaaji Cabdiraxmaan wararka telefishinka Sahan magaalada Burco